سلام الله عليكم صاحبات قيمها بدن كسر هذا كنالك شراء فشل أو قبلتين دعوينك أدونك يوحيابها دفك عدد كليا فضلا هداتاي كيغوريسي أصوبقت كنالك سبسكرايب صار ليك يكومنتي هكا إلا كان بقليل كفرو سيمر البخوص دعين وحيابها عصوب لنا وما سنتات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودياشا كحر كنال كيدا شراء فشيل waxaan maanta ku soo qaadanaynaa xayawaanka ugu hantida badan dunida waxa laga yaabaa maanta inaynu garanayno dadka ugu qanisan caalamka laakiin dhanka kale waxaa jira xayawaanaha tin badan la dunida maanta taasoo laga yaabo inay la yaabaan dad badan oo inaga mid ah koontarka afraad waa xayawaanka ugu lacagta badan dunida eegan waxaa lagu tiriyaa eega ugu hantida badan dunida waxa uu ku nool yahay qasri aad u weyn kaasoo leh shaqaale u gaar ah daryeelkiisa waxaana ku nool yahay dalka Jarmalka waxaa hantidiisa lagu qiyaasaa 4 milyan oo dollar oo ah 4 milyan oo boqol oo dollar oo u dhiganta dollarka Mareykanka arrintan ayaa la yaaban anigoo asheera iyo xaasiga najma oo ay fadhida laakiin waa maxay sirta ka dambaysa inuu xayawaanka noqdo qof intaasoo lacag haysta وعلي هنتنا فرح بدن سنتكم مركو ahaa 1940 markay go'aan ku gaartay Carlota oo ah gabar xayawaanka aad u jecel taasoo dhaxalkeedii inta badan ku qortay eegan iyadoo kala xisaalatay dadkeedii iyo dalkeediiba isagoo waqtigeyn waleed kulanoona nolol barwaaqo iyo baraara ah waxa uu hadda ku nool yahay villa ku taala Jarmalka taasoo qiimaheeda lagu qiyaasay 400 oo milyan oo dollarka Mareykanka ah sidoo kale waxa uu guryo ku leeyahay Soomaaliya gaar ahaan Puntland Somaliland iyo Ethiopia iyo Talyaaniga iyo jasiiradda Neyka sidoo kale waxa loo iibiyay heeb ku taala Soomaaliya oo dhinaca Kenya xigta heebta waxa iibiyay oo gatay Sheikh Shariif iyo Cabdiraxmaan Cabdirashiid iyo Umar Cabdirashiid oo ka iibiyay Uhuru Kenyatta wuxuu iibinayay aygan waxa uu magaalada ku dhex maraa gawaaridiisa oo mid nooc ah waxa